السلام عليكم isku soo noqod wanaagsan maanta waxaynu soo koobi doonaa filimka lagu magacaabo Non-Stop oo soo baxay sanadkii 2014 Bill Marks sida wajigiisa ka muuqato waa nin isku buuqsan isagu waa janan ciidamada cirka kamid ah waxaana saameyn xun ku yeelatay dhimashada inantiisa Olivia oo kansar u dhimatay si uu uga baxsado isku buuqa ku furan wuxuu noqday cabtooy markastana wuu cabaa xitaa marka uu shaqaynayo isagoo u kacay inuu sigaar cabo ayuu u yimid in la yiraahdo Tom oo leetar weydiistay leetartii intii aan garanayn waxa la yiraahdaa baashan sigaarka lagu shito waxaanu isku dayay inuu la yara sheekaysto Bill isagoo weydiiyay meesha uu ku socdo Bill uu jawaabin Tomna wuxuu sheegay inuu ku socdo Amsterdam Bill si xiriir ayuu hareeraha u eegayay isagoo isku dayay inuu ammaanka qof kasta oo diyaaradda saaran sugo xogaa yar kadib wuxuu aadayay xamaamka waxaanu kula kulmay janan kale oo ciidamada cirka ka tirsan oo la yiraahdo Jack Hammond kadib wuxuu helayaa gabadh yar oo la yiraahdo Baka oo kaliya safarka soo raacday waxaanu dareemayaa in caruusadeedii si kadisa uga timi waxa ka xaysay mid kamid ah adeegtooyinka diyaaradda waxaana u geysay caawisada duuliyayaasha oo la yiraahdo Nancy Baka way ka baqbaqaysay inay gasho diyaaradda markii uu Bill keenay caruusadeediina way ku farxday diyaaradiina way fuushay rakaabkiina way fadhiisteen nin la yiraahdo Saak ayaa Bill dhinac fadhiyay gabadh la yiraahdo Jane ayaa u timi Saak oo ka dalbatay inuu kursiga u bedelo si ay daaqada u fadhiisato waanu ka aqbalay Nancy waxay ku faraxsan tahay in caawisada kale ee kala shaqeynaysa diyaaradda ee Guweyn ay diyaaradda soo kortay oo ay hawsha kala fududeynayso duuliyayaasha kale ah Captain David iyo Kyle Rice ayaa systemkii diyaaradda fadhiisiyay Bill waxa weerar hanjabaada ku soo qaaday boosaskiisii ka sareeyay waxaanu u xaqiijiyay in wax waliba caadi yihiin Bill maadaama uu janan ciidan yahay waa inuu isqariyaa oo u dhaqmaa sidii rakaab caadi ah si uu isaga ilaaliyo inay cidi dareento ama qayladhan ay ka dirto isaga diyaaradii ayaa kacday waxaanu Bill iska dhigay mid ka cabsada duulimaadka waxa uu gacanta ku xidhay xarig yar oo ay siisay inantiisii yaray markii ay diyaaradda hawada gashay ayay Jane weydiisay Bill inantiisa yar waxaanu u sheegay Beenah inay 17 jir tahay markii uu shaqadeeda weydiiyay way isdhaafisay su'aashiisa iyadoo uu sheegtay inay doonayso inay seexato diyaaraddu hadda daruuraha dushooda ayay maraysaa Billna inuu sigaar cabo ayuu aaday suuliga markii uu kursigiisa ku soo laabtay ayay soo gaadhay fariin uu soo diray lambar unknown ah oo isugu sheegay inuu yahay mid kamid ah rakaabka diyaaradda saaran waxaanu wax ka sheegay sigaarkii ku soo cabay suuliga isla markiiba hareeraha ayuu eegay bal inuu qofkaas garto laakiin nasiib xumo cid uu ka shakiyo ma arkin kadibna wuu kacay si uu u soo wada mariyay rakaabka iyadoo Jane hoosta ka eegisay isagoo aan arkaynin haddana wuxuu u gudbay qanka ku xiga wuxuu ka shakiyana ma arkin qofkaas aan la garanayn wuxuu u sheegay Bill inuu saacadiisa alarmigeeda ku buuxiyo 20 daqiiqo isagoo u sheegay markuu 20 kaasi dhamaado inay qof diyaaradda saaran dili doonaan isha ayuu haddana wada mariyay rakaabka sidii markii hore kale waxba ishiisu ma qaban qofkii haddana wuxuu weydiiyay inuu 150 milyan oo dollar u soo diro akoonkii uu ku diri lahaana wuu soo diray nin la yiraahdo Riley ayaa la socday dhaqaaqooda marka uu Jack daba tago Bill wuxuu u maleeyay inuu Jack message-da u soo dirayay waxaanu u sheegay inuu ciyaarta joojiyo balse Jack ku dafiray inuu qofkaasi yahay isagu mobilkiisa ayaanu Jack u dhiibay si uu u baaro Bill wax kasta uu sharaxay laakiin Jack kuma qancin inuu qof kale ku dili doono diyaaradda gudaheeda isla markaana uu baxsan doono Bill waxa uu ka dalbaday markaa inuu ilaaliyo khanka weyn ee diyaaradda isaguna wuxuu aaday shirka diyaaradda laga hago si uu xaalka ula socodsiiyo kabtankina wuxuu u sheegay inay marayaan bartamaha badweynta Atlantic-ga inay degdeg meel ugu degaanaan aanay suuragal ahayn waxaanu Bill ka dalbaday kabtankii in account numberkaas ay daba galaan network-gana ay ka xidhaan si ay uga hortagaan in systemka diyaaradda la dhex galo oo uu balbaaro in lacag la isweydaarsaday in kale CC kamarada diyaaraddana uu balka eego wax shaki geliya isaga iyo Nancy ayaana wada baaray kamaradaha kadib ayuu haddana Jane u yeeray si ay u caawiso maadaama ay kamarada badan ahaayeen wuxuu u dhiibay qalimo si ay u calaamadiyaan dadka telefoonadooda isticmaalaya kadib ayuu fariin u diray qofkii uu hanjabayay intii uu qoraalkaas u dirayayna Nancy iyo Jane waxay calaamadiyeen dhowr qof oo mobilkooda isticmaalaya xogaa yar kadib waxa Bill soo wacay Mirinikoo dhulka jooga oo u shaqeeyay shirkadda TSA ee Billna ka howlgalo Jane waxay dareentay inuu Jack lambarkiisa si xiriir u isticmaalayo laakiin Bill ayaa isdaafiyay oo sheegay inaanu isaga ahayn kadibna Mirinikoo maqliyay ayaa u sheegay in cidna in indhaha laga laabto xaaladan oo kale aanay wacnayn qofkii dhibay ayaa haddana weydiiyay Bill inantiisii si uu tuhun ugu galiyo Jack waxaanay kamarada ka arkeen Jack inuu u kacay dhanka xamaamka Billna halkaas ayuu kula kulmay markii uu Bill u tagayna wuxuu u sheegay Jack inuu lacagtaas u baahan yahay kadib dagaal ayaa dhex maray oo Jack ayaa weeraray telefonkiisina biyaha raaciyay si uu cadeynta u baabi'iyo kadib baaskoolada ayuu la soo baxay Jack Billna inuu dilo ayuu ku qasbanaaday waanu dilay kadib intuu mobilkii Jack qaatay ayuu xamaamkii dusha kaga xidhay argagax ayay ku noqotay Bill markii ay u soo dhacday fariin ka timi qofkii dhibay
dhiibayay oo ugu hambalyeynayay inuu qofkii koowaad dilay kadibna uu sheegay inuu saacadiisa ku buuxiyo in qof kale oo rakaab ah dhiman doono 20 daqiiqo gudahood haddii aanay lacagtaasi soo gaadhin waxa uu cararay dhanka duuliyayaasha bayloodkina wuxuu u sheegay in akoon nambarka uu qofkaasi soo diray uu ahaa kii Jack Jen ayaa hadalkooda dhageysanaysay kabtankii ayaana weydiiyey 20 daqiiqo gudahood ay wax ku dhaceen biilna inuu Jack dilay uu sheegin TSA ayaa soo amartay inay biil ka qaadaan baaskoolada iyo astaanta ciidanimadaba kabtankiina uu ku qasbanaaday Jen waxay ka caawisay biil inay mobilkii Jack hagaajiso waxaanay ogaadeen inuu qofkaasi Jack laftiisa rikaateeyay waxaanu qofkaasi sidoo kale u sheegay in boorsada gacanta ee booska Jack ku jirta uu og yahay waxa ku jira markii uu biil baarina wuxuu ka helay daroogo kokayin ah waxaanu fahmay sababtii uu Jack u bariyay inuu lacag u baahnaa ay ahayd inuu maleeyay inuu biil daroogadiisa ogaaday Nancy ayaa ku qaylisay biil oo ku amartay inuu sheegay inuu Jack dhintay waana argagaxday laakiin biil uu dajiyay isagoo adeegsanaya astaantii ciidanimo ee Jack wuxuu biil sameeyay baaritaan teel ah oo uu ku samaynayo dadkii la calaamadiyay maadaama uu waqtigu cidhiidhi yahayna wuxuu go'aansaday biil inuu gacmaha ku baaro dhowr qof oo ay ku jirto Jen waxaana uu si hoose ugu sheegay inay shaqo hayso waxa dadkaas ka mid ahaa Fahim oo ahaa dhakhtar iyo sidoo kale Charles oo ahaa qareen ugu dambeyntii Riley oo isagu sheegay inuu yahay boolis haddana fariin ayuu u soo diray qofkii waxaana uu sheegay inuu ciyaartu wada joojiyo kadibna wuxuu aad uga shakiyay Tomkii ay sigaarka wada cabayeen bilowgii ee uu sheegay inuu Amsterdam ku socdo kadibna intuu qabtay ayuu gudaarka ku dhajiyay isla markiiba waxa soo wacay Marinik oo uu sheegay Tom inuu yahay macallin iskuul balse kuma qancin biil ee wuxuu bilaabay inuu su'aal boolis weydiiyo waxaanu ogaaday in lacag lagu siiyay inuu biil weydiiyo halka ku socdo kadibna uu kaxeeyay isagoo weydiinayay inuu ogaado cidda lacagta ku siisay waxaanu Tom u tilmaamay in muraayad xidhan biil hore ayuu kaxeeyay isagii waxaanu u sheegay ninkan uu eegay inuu ahaa ninkii lacagta ku siiyay laakiin aanu kan ahayn kadibna biil Tom gacmaha ayuu ka xidhay waxaanu eegay saacadiisii waxaanu xaqiiqsaday 49 ilbiriqsi oo kaliya inay ka hadheen dhimashada qofkii labaad kadibna baaskooladiisa ayuu la soo baxay waxaanu galay digtooni waxaana soo gaadhay fariin ah in dadka la beegsanaya aan ahayn rakaabka oo kaliya waxaanu u cararay dhanka Nancy laakiin diyaaradii ayaa ruxantay waxaanu ka soo go'ay saqafka sare kadib wuxuu helayaa Nancy waxaana aadayaan dhanka qolka wadayaasha waxaana arkayaan kabtankii oo naqas ku hayo Kylena uu isku dayay inuu qalqabto biil ayaa cararaya oo soo kaxaynaya Dr. Fahim waxaana uu sheegay inay macquul tahay inuu sumoobay biil mar kale ayuu saacadiisa ku buuxinaya 20 daqiiqo Kylena wuxuu ka dalbanayaa inuu qolka kantaroolka mas'uuliyadiisa wada qaado ilaa inta diyaaraddu ka degayso kadib Jen ayaa biil baraysa Zack iyadoo uu sheegay inuu programmer yahay Zackna wuxuu u sheegayaa inay suuragal tahay in telefoon lagu buuxbuuxiyo inuu fariin diro iyadoo la raacinayo virus la socdo sawir la dirayo kadibna telefoonka silent la galiyay uu iskii u dhacayo biil ayaa u dhiibay telefoonkiisii si uu uga shaqeeyo isagoo ku baraarujinaya inuu waqti ku socdo in yar kadib ayuu biil shaacinayaa inuu xidhayo khanka weyn ee diyaaradda si qof waliba uu hal meel u joogo dadkuna way ka diidayaan laakiin wuu dejinayaa dadka Zack uu ka dhamaanayaa hawshii biilna telefoonkiisii uu soo celinayaa kadib wuxuu ka codsanayaa in qof kasta uu gacmaha kor u taago isagoo baaskooladiisa diyaarsanaya si taxadar leh ayuu u dhageystay kadibna telefoon ayaa dhacay waxaanu noqday telefoonkii Charles kadibna uu istaajiyay isagoo Charlesna dafirayay inuu yahay telefoonkiisii waxaanu Charles u kaxaynayaa xagga dambe laakiin qofan waxba ogeyn ayuu u ekaa si kadisa ayaanu Charles u gariirayaa sidii pilotka waanu dhimanayaa markiiba Riley ayaa dadkii qaybtiisa la saarnaa u sheegaya inay weeraraan biil kadib markii uu dhakhtarku u sheegay dhimashada kabtanka iyo Charlesba biil mar kale ayuu xamaamka galayaa oo uu sigaar cabayaa waxaanu arkayaa dalool yar oo toos u gaadhaya shirka diyaaradda laga wado waxaanu xagga hoose ka helayaa shilisho yaryar oo suntii loo adeegsaday pilotka laga shubay kadib ayuu jidhkii Charles baaray waxaanu ka helay bin yar oo suntaasi ku jirtay waxaanu aaday gabadhii xamaamka ugu horeysay Charles oo iyaduna u sheegtay inay Jen kaga dambeysay biil waxa uu su'aalo dambi baadhis weydiiyay Jen su'aalahaas oo ahaa sababta ay u soo ag fadhiisatay ee ay uga soo ag dhawaatay waxaanay Jen u sheegtay inay leedahay wadna xanuun joogto ah dhakhtaraduna ay u sheegeen inay markasta dhiman karto oo ay jeceshahay inay daaqada fadhiisato si ay muuqaal qurxoon u sii daawato kadibna biil uu ka raali geliyay maadaama uu biil hayo telefonkii qofkaasi uu fariimaha ka soo dirayay Jen waxay isku dayaysaa inay garato passwordkiisa laakiin waxa markiiba is active garanaysa Bambo marka ay taataabato telefonka halka dhanka kale wararka oo dhan uu saaran yahay biil iyadoo lagu eedeynayo inuu yahay qofka waxaan u dhangeysanaya nasiib wanaag biil wuxuu fahmay qaabka qura ee diyaaradda bam ku soo gali kartaa inuu yahay Jack maadaama aan isaga la baadhin oo uu ahaa sarkaal waxaanu baadhaya borsadiisii gacanta ee daroogadu ku jirtay waxaanu ka helayaa daroogada dhexdeeda bambada laakiin markii uu siri dhaqaaq ayay soo weerareen Riley iyo kooxdiisii markii ay xidhxidheen wuxuu u sheegay inay diyaaradda bamba saaran tahay kadib Tom ayaa baaskoolad la soo baxay una sheegay inay sii daayaan biil wayna sii daayeen wax walbana dadkii uu u sharaxay Tomna baaskooladiisii dib ayuu ugu soo celiyay biil kadibna laba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah ayaa soo hareeragalay diyaaradii biiladu caawiyihiina u sheegay inuu tooskaas u socdo ilaa intay degayaan biil wuxuu soo aaday shirkii diyaaradda waxaanu u sheegay inuu diyaaradda hoos u dhigo ilaa 8,000 feet si uu u yareeyo khasaaraha bambada hadiiba ay qaraxdo Kyle oo ah caawiyihii pilotka ayaa dalbaday waqti dheeraad ah si loogu ogolaado inuu ku dhawaado Iceland oo ay ku degi
degi karaan maadaama ay weli badweynta dul marayaan. Biil miiskii ayuu soo saaray bamkii isagoo sharaxaya inuu yahay bam cadaadiska ku qarxaya iyadoo la qarxiyo mooyaane aan la kala furi karin. xal kale markii uu waayeyna waxa uu bambadii ku xidhay albaabka dambe. rakaabkiina wuxuu u sheegay inay dul raseeyaan shandada waaweyn si ay saameyntiisu u yaraato. biil wuxuu dib ugu laabtay Kayle una sheegay inuu hoos u dhigo 3 daqiiqadood gudahood. Becca iyaduna way argagaxsanayd waxaana isku dayaysaa inay dhuumato. Gwen ayaa isku dayday inay ku qanciso inay soo baxdo. Biil ayaana siiyay xadhigii inantiisa yar waxaana uu keenay Jane. in yar kadib Marinik ayaa soo wacay Biil una xaqiijiyay in lacagtii la bixiyay. Biilna sameecada ayuu daaray telefoonkii si uu qofkii dhibayay u maqlo. Marinik weli wuxuu aaminsan yahay Biil inuu yahay qofka waxaan oo dhan ka dambeeya. waxaana uu sheegay inuu jiro fiideo baraha bulshada lagu faafiyay oo muujinaya Biil oo jiidaya Tom oo rakaabka mid ka mid ah uu khadka geliyay. Biil ayaa helay qofkii muuqaalka faafiyay telefoonkiisina uu ka qaaday. Tomna aad ayuu uga xanaaqay. muuqaalkaas ayaanu ka gartay Biil Tom oo Charles jeebka telefoon u gelinaya. Tom oo fahmayna wuu kacay waxaanu gacanta ku dhigay baaskoladii Riley waxaanu isku dayay inuu xabad ku dhufto laakiin baaskooladu ma xabasnayn. Riley ayaa Tom afka ku dhuftay oo baaskooladii ka qaaday waxaanu baaray rasaastii. Saak ayaana gacanta ku hayay rasaasta kadib gacan ayay isula tageen. Saak ayaa baaskooladii ka qabsaday oo cabeeyay xabadna ku dhuftay Riley. Tom ayaa isla markiiba Biil oo yara khalkhalsan ka faa'iideystay oo baaskooladii ka dafay. dhanka kale Kayle wuxuu weydiiyay in loo ogolaado inuu hoos u dego laakiin diyaaradihii dagaal dhinac socday ayaa ka diiday. Tom iyo Saak oo hubaysan ayaa si rasmi ah diyaaradii u qabsaday. Tom ayaana sharaxay sida aanay sukuuradku u xooganayn waxaanay qorsheeyeen inay boodaan marka ay diyaaraddu hoos u yara degto. laakiin Biil ayaa Saak u sheegay inaanay u suurtoobayn maadaama loo diiday bayloodku inuu hoos u dego. waxaanu Biil ka dalbaday inuu bambada damiyo si uu naftiisa u badbaadiyo. laakiin Tom ayaa xabad ku dhuftay Saak. xaaladdu markay xumaatayna Kayle ayaa go'aansaday inuu hoos u dego si kastoo loogu diidayba. markii ay diyaaradii hoos u degtay ilaa 8,000 feet ayuu Biil awooday inuu Tom gaado waanu dilay. Saak oo noola ayaana weeraray Biil laakiin Biil oo dareemay in waqtigii bambadu dhamaaday ayaa ka fogaaday dhankeedii. Saakna bambadii ayaa ku qaraxday. Kaylena wuxuu ku qasbanaaday inuu wada rafa ku dajiyo diyaaradda. Becca ayaa daaqada ka dhici gaadhay waxaana badbaadiyay Biil iyo Jane. ugu dambeyntii diyaaradii way istaagtay dadkina xaalad ammaan ah ayay dareemeen. Beccana xadhigii yara ayay dib ugu soo celisay Biil. filimkuna wuxuu ku dhamaanayaa Biil iyo Jane oo xoogaa is caashaqsan oo ilkal gacal isku eegaya. nabadgelyo dhammaantiin.